kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal gebi ahaantiinba halkani waa warbaahinta warar sugan 24 ku soo dhawaada warbixin xiise leh oo ku saabsan dawo loo helay cudurka dunida faraha baan ku haya ee COVID-19 dawo tijaabo ah oo cilmi baaris lagu sameeyay lagu ogaaday in ay waxtar ay u leedahay la dagaalanka cudurka coronavirus taasoo ay saamaxayso in waqti yar uu bukaanka kaga bogsado xanuunka celcelis ahaan muddo 4 cisho ah sida ay arbacadii ay ku dhawaaqeen dowladda Mareykanka iyo mas'uuliyiinta hay'adda cilmi baarista sameysay sharikadda la yiraahdo Gilead Sciences ayaa laga soo xigtay in dawada remdesivir ay tahay tii ugu horeysay ay ka gudubta tijaabo lagu sameeyay lana xaqiijiyay in ay waxtar ay u leedahay fayraskan oo dilay in ka badan 224,000 oo qofood kadib markii uu dabayaaqadii sanadkii hore idlaaday uu ka dilaacay dalka Shiinaha halista dawadan ayaa la sheegay in ay wax badan ka qaban doonto faafitaanka COVID-19 mas'uuliyiinta caafimaadka waxa ay sheegayaan in sanooyin badani ay qaadan doonto in talaal loo helo xanuunkan daraasadan oo ay sameysay Machadka Qaranka Mareykanka ee Caafimaadka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano NIH ayaa tijaabada dawadani remdesivir waxa ay ku sameeyeen ilaa iyo 360 bukaan oo qaba xanuunka coronavirus oo kala jooga dunida dacaladeeda Dr. Antonio agaasimaha Machadka NIH ayaa aqalka cad ee Mareykanka waxa uu sheegay in dawadani ay yareynayso waqtiga bukaanada kaga soo bogsoonayaan xanuunkan 130 bukaanada haddii dawadani la siiyo waxay ku bogsoon karaan muddo 12 cisho